الله unaxariistay waxa lagu aasay qabuuraha muslimiinta magaalada Johannesburg ee dalkani Koonfur Afrika saxafi Soomaaliyeed oo lagu magacaabi jiray Zakariya Ibrahim iyadoo ay aaskiisii ka soo qayb galeen dhammaan qaybaha kala duwan ee jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Johannesburg ee dalkani Koonfur Afrika. dilka loo geystay wariyahani ayaa yimid kadib markii ay damaaciyeen gaarigiisii kooxa burcad oo ka cararayay ciidamada ilaalada wadooyinka ee magaalada Johannesburg ee dalkani Koonfur Afrika kuwaas oo ka dhaga adeegay wariye Zaki dabadeedna ay rasaasta u dhintay ku fureen iyagoona burcadaasi ay ku baxsadeen gaarigii uu watay marxuumkan dhintay. wariye Zaki oo magaalada Johannesburg ee dalkani Koonfur Afrika loogu sameeyay aas balaaran ayaa waxa culimo diinkii ka hadlay aaskani kamid ah Sheekh Maxamed Aqayaar oo isagu ku tilmaamay dilka wariye Zaki inuu yahay mid xaq darro ah tacsiiti raayaan la u diray dhammaan ehladii asxaabtii uu ka geeriyooday marxuumkan. intii lagu guda jiray aaska sheekhu waxa uu aad ugu dheeraaday uuna ku baraarujiyay dhalinyarada in geeridu ay xaq tahay. waxaan halkan aan uga tacsiyeenayaa geeridii aad u xanuunka badnayd ee ku timid walaalkeen Zakariya wuxuu ka mid ahaa dhalinyarada South Africa ragga aad looga yaqaanay firfircoon haddana waxaa dishay gacan ka xaq daran. kulli aniga iyo culimo kale waxaan ku tilmaanay geeridaas inuu yahay man qutila duuna maalihi فهو شهيد إنه نشهيد أي زكريا هدانا جالية كونفور أفريقيا كل رقم آدي آد بان أوضحنا جيريدا سواء التعزين الذي يرضي ولا لا هي صاحب بدأ يكون هاي ودكن ولا لي الجيريدا ولا مهران نكستوا يكون معنا سا أنتين نوي معن أنا إلهي كبرنا ميلان جوجنا وبالله التوفيق. dilkan loo geystay wariye Zaki ayaa qayb ka ah dilalka had iyo jeer lagula kaco muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku nool dalkani Koonfur Afrika waxaana sii kordhaya maalinba maalinta ka dambaysa wajiyo cusubna yeelanayo dilalka iyo gumaadka loo geysto dadka Soomaaliyeed ee ka xoogsada dalkani Koonfur Afrika. horaantii toddobaadkan ayaa waxa iyana lagu dilay duleedka magaalada Port Elizabeth ee gobolka Eastern Cape ee dalkani Koonfur Afrika laba nin oo muwaadiniin Soomaaliyeed ah. mid ka mid ah dilkiisu waxa uu ahaa mid qorshaysan sida ay xaqiijiyeen dadka agdhawaa. si kastaba haatee waa markii ugu horeysay ee suxufi Soomaaliyeed lagu dilo dalkani Koonfur Afrika waxaana dhacdadani aad uga xumaaday dhammaan saxafiyiinta Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalkani Koonfur Afrika. Cabdinaasir Soomane, telefishinka caalamiga Universal TV, Johannesburg.